waxaad arkaysay in safaarad Mareykanku uu ka furay Hargeysa ay Puntland leedahay. Puntland baale calanka Puntland ba Hargeysa ka dhaxbabanayaan. Annaga baraayaan oo buluug giile oo waliba dadka mudaharaadeen. Mareykanku wuxuu ugu magac daray safaaradaas maxaan ku dhahay iskaashiga wada shaqeynta la dagaalanka argagixisada ee Puntland, Somaliland iyo Mareykanka. Saddexaad wax saas annaga wax aragnay. Magac noocaas la isugu xidhay. Xaqiiqo weeyo oo Mareykanku iyo Turkiga hadda isku haya meesha. Challenge-gaasina inuu faa'iido u yeesho nimanka siyaasiyiinta ee meesha isku haya waa mid dhici karta. Mareykanku lacag fara badan oo awalba uu siin jirin Puntland bartay oo ballan qaaday oo midan kabka ciidanka laamiyadan saldhigyadan waaweyn waxan waa marka ma aha Axmed Jacayl loo qabay waa Xasan Nacayb loo qabo. Turkigu sidoo kale diyaarada una awalba qoori jirin oo hal wadan oo Afrikaan siiyay ayna jirin oo iyuu soo qufay. waxaasi marka ma aha Xasan Jacayl loo qabay waa Mareykan Nacayb loo qabo. xisaabaha noocaas ee tartanka aniguba waan siiyay ambaho laba wadan baad isku keen dagaalaysa. labada wadan mid walba dhaqaalihiisa iyo hubkiisa uu meesha soo gelinaya midkii aad kala arkayna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa todobada bisha Agost sanadka 2026 maalinimadu waa jamca wanaagsan dhamaantiin. Barnaamijku waa xog waran aniguna waxaan ahay Muxudiin Cabdi Yuusuf. Saaxiibkay Cabdiraxmaan Afakaadho baa garabkayga fadhiya. qodob wareedkani waxaynu isku eegi doonaa daqiiqadaha soo socda haduu eebo raali ka noqdo insha Allah ta'ala. dawladda Mareykanka oo quwadda ugu weyn adduunka maanta waxay wax ka bedel ku samaysay qaab aragtidii ay ka haysatay Soomaaliya. sidee ayay Mareykanku u bedeleen aragtidii ay ka qabeen Soomaaliya? maxaa ka socda Kismaayo, Boosaaso, Afmadow iyo meelo kale oo kamid ah Soomaaliya, Muqdisho, Banaadir iyo Koonfur Galbeed miyuu ka maarmay Mareykanku? sidee bay wax u socdaan? waraysigii uu dhawaan bixiyay ninka u qaabilsan Africom ciidankeeda maxay buu ku sheegay? xagee buu Mareykanku uga jahaystay siyaasadda Soomaaliya? qodob wareedkaasi ayaynu isla eegi doonaa. saaxiibka Cabdiraxmaan Afakaadho ayaa inala falanqeyn doona daqiiqadaha soo socda. Cabdiraxmaan waa ku soo dhaweynaya. ninkii Mareykan ahaa ee awoodda dunida sheeganay Ilaahay baa awood leh. waqtigiis waa gabaabsi Ilaahay idankii. waxa la yiraahdo qaabkii hore Soomaaliya uu uga mid ahaa wax badan buu ka bedelay. bal Mareykanku xagee aaday? bismillahir rahmanir rahiim. Mareykanku Muxudiinow waayahanba wuxuu ku hawlanaa sidii Xasan oo la tacaamuli lahaa. Xasan Sheekh Maxamuud iyo caalamku sida isku ogaayeen way isbixin weyday. Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu awood buuxda oo 200% ka helay Turkiga wuxuuna u joojin waayay heshiis kasta oo uu la galay saamiley waxa la dhahaa qof kasta oo saameyn ku leh hawsha iyada. saamiley waxa noqon kara wadamada Afrikaanka ee ay ka joogaan ciidamada Soomaaliya. saamiley waxa noqon kara siyaasiyiinta Soomaaliya ee shacabka iyo taageerada ku leh. saamiley waxa noqon kara wadamada kaaba ama maxaan ku dhahay garab istaaga kaalmeeya dhaqaale ahaan oo ay ka mid yihiin reer Yurub iyo Ingiriiska ugu horeeyo iyo Mareykanku ka mid yihiin. saamileydii oo dhan Xasan Sheekh dhag jalaq uu siin waayay isaga iyo Turkiga baa isla waashay qababax meeshan ka deg meeshan ku waxay diyaaradda kici wax kasta oo uu uga baahdo dhowr F16 wax kasta uga baahdo uu ku qadqaadaa. ku qadqaadkii noocaas Mareykanku in badan buu garab ordo war ka joog war garab uu kari waayay. marka istiraatiijiyad kale uu qaatay xilligii ku meel gaarka ee maamul goboleedyada inta jirta ay madax banaanayeen ee gaar loola tacaamulayay Mareykanku siyaasad buu la dhaqmayay. kolkuu dawladii ku meel gaar ka gudubtayna hal jid buu ka soo galayay Soomaaliya. wuxuu awoodi waayay oo uu ku qanci waayay qaabkan hadda dawladdan u shaqeynayso wuxuuna go'aansaday inuu maamul goboleedyadii dib ula tacaamulo. Mareykanku ciidamo ahaan iyo amni ahaan iyo wax saas u wada. waxaad arkaysay in safaarad Mareykanku uu ka furay Hargeysa ay Puntland leedahay. Puntland baale calanka Puntland ba Hargeysa ka dhaxbabanayaan. annaga baraayaan oo buluug giile oo waliba dadka mudaharaadeen. Mareykanku wuxuu ugu magac daray safaaradaas maxaan ku dhahay iskaashiga wada shaqeynta la dagaalanka argagixisada ee Puntland, Somaliland iyo Mareykanka. saddexaad wax saas annaga wax aragnay. magac noocaas la isugu xidhay. oo meeshii Soomaaliya la oran jiray waxa su'aalo kala tagay. Puntland iyo Somaliland iyo la dagaalanka argagixisada iyo Mareykanka noocaas qaad ciwaan noocaas oo xafiis yaa Hargeysa ka furan. Mareykanku halka wuxuu ku hayaa Puntland iyo Somaliland oo mid oo isku si u maamula oo iyaguna heshiis
maraykanka halkaa ku haya maraykanka heshiisiyey oo halkaa ku haya iyo qoladii kale ee koofiyadda xumeyd haye si kastaba ha ahaatee waxaad arkaysay in heshiis buuxa ay wada qaateen ciro iyo deni waxay ku heshiiyaan aad loo garan lahaa heshiiskii noocaas ah midhihiisii wuxuu noqday in qadan qaran iyo BK iyo ay yimaadaan garoowe oo ay wanted ka ahaayeen oo iyagoo calankii Soomaaliland wata ay ku dhex durbaantuntaan meesha la yiraahdo garoowe oo 18 May garoowe laga dhigo way habe heshiiyaan ilaahay bogooda burcad isu mariyay siyaasadda guud baan ku tilmaamaynaa Maraykanku shabeellada dhexe iyo meesha loo oran jiray meesha garoonkii Beledoogle iyo xiriir ugu weynaa ee Soomaaliya uu ku lahaa dhamaantood wuxuu u soo rarayaa Jubbaland intaan taa u gudbin oo si fiican u falanqeyn doonaa Maraykanku waxa tii dawladda ku meel gaarka ahayd sidii uu ula macaamili jiray maamul goboleedyada iyo rabaa inuu dib ugu noqdo oo istiraatiijiyadii oo federaalka kaliya ula macaamilay uu ka guuraya waxay ka dhigan tahay dawladnimadii Soomaaliya federaalku way baabaaday dawladnimada laba siyaabood ba loo kala arkaa Xasan Sheekh iyo wuxuu lagu ku jiito waxay leeyihiin muddo hal sano aha iyo dastuur baarlamaan sharci ansixiyay baan wadanaa oo sidan sax baan ku nahay dadka soo horjeeda oo Maraykanku uu kamid yahay waxay leeyihiin dastuur aan loo dhanayna ma shaqeynayo hal sano oo aan la isku raacsanayna kuma darsan kartid Xasan Sheekh Maxamed marka wuxuu kamid yahay saamileyda hogaamiye kooxeedyada waxay doonaan ba loogu yeedhay ragga awoodda leh ee maamulada xaafadahooda xukuma ayuu kamid yahay Xasan xaafad buu noqday oo galmudug inta ka jarantay Hirshabelle ku jirtay ee koonfur galbeedna ay caaga ku jiidato iyo Muqdisho iyo awoodiisa ku soo koobantay way intaasna Maraykanku uga tanaasulay farho uga qaaday kaliya xadka xaggaana Puntland ma soo dhaafayo Maraykanku xaggana Jubbaland ma soo dhaafayo way Puntland iyo Somaliland oo dhan iyo Jubbaland oo dhan iyo Maraykanku awoodiisii iyo hantigiisii iyo dhaqaalihiisii iyo siyaasadiisii rabaa inuu geliyo way Maraykanku marka wuxuu la dagaalamayaa koonfurta Soomaaliya nimankan joogay ee Turkida iyo base-ka ay ka sameysteen waxa la yiraahdo ay maalinka dhowta maxkamada rabeen ka tuuraan Maraykanku marka wuxuu ka soo horjeedaa siyaasadda u dhaxaysa Xasan Sheekh iyo Turkida marka in laga eego iyo iskaashiga wadaas miyuu u arkaa inay isaga danihiisa ka soo horjeedaan weligoodba wadamo waxaa jira aan isku meel ka qodo qaadin haddaad aragtay Iiraan iyo Imaaraad iyo Maraykan iyo waxba wax ku heshiiyey waa arrin naadir ah geel xagga horaabeed ku yeeshay haddaad maqasho Turki iyo maxay iyo waxba wax ku heshiiyeen suurtagal iyadana ma aha qolyahan Turkiga iyo Maraykanku weligoodba siyaasadahooda inta badan way iska ramarsan yihiin way lidba isku yihiin waa sida reer waqooyigu Turkigu raacsan yahay inta badan Ruushka iyo qolyaha China reer bariga raacsan yahay qolyaha reer galbeedka siyaasadda weligeedba lidku ay wataan Soomaaliyana waxay noqotay meelaha ugu istiraatiijisan dagaalkan casriga ah ee maanta caalamku ama uu galay ama uu sii galayo meesha ku taallay juqraafiyad ahaan baana muhiim ka sii dhigaysa inta si muhiimka ah waa goboladan Somaliland iyo Puntland iyo ay inta badan ay hadda joogtaan waxaad igu noqotaa marka wixii Jubbaland xaggeedii afmadow ka jira Maraykanku ninka socdo wakiilka ka socda oo aan tiradooda aad u qaribsaday yaa kismaayo ka degay iyagoon markii koobaad Muqdisho wargelinin aan xogta haysa maaqa wax wargelina iyo tala aanay ku lahayn markay kismaayo yimaadeen Axmed bay la shireen Axmedna meesha si kasta la yeeliyo wala dhaafin waaye Axmed iyo iyagu maxay ka wada hadleen horta Maraykanku meel lama wargeliyo inta Ilaahay ka sokaysa awoodda isbiday caalamka sidoo doona ka yeelo inama wargeliyo wadankan Soomaaliya wadankeenana kacaankii kadib ninna intuu yiri waa aniga waan soo galayaa muuna ogolaansho ku soo gali nin walba markuu doono iska soo galaa markuu doono uu iska baxaa diyaarad yar oo kuwa dalxiiska ah oo inay Djibouti ka soo kacday aan maleynaya xilligii kacaankii wixii ku dhacay ciidamada cirka Soomaaliya ay ku sameeyeen waan jeclaystaa waan ku celcelshadaa waan dhageystaa waan ku celcelshadaa awoodii iyo maanta awoodda jirta waxaad isbarbar dhigi karto ma yaha laba jeer bay la hadleen mar saddexaadkiina gantaal bay ka wareeshay dhigta kaga dhacay iyo laba diyaaradood oo la siman oo kor ka socda waa 15 ilbiriqsi iyo hawada ku jirta iyaduna way garaysan weyday nin reer Yurub oo dalxiis oo diyaarad khaas ah wato oo maalqabeena wadan yar oo Afrikaana yaaba ku soo hawaysan waxay isireen inta khadku isra raadinayay ee la isoo waxaynayo waabad ka dhaxbixi Kenya sii galay Mombasa meelahaas ku socotay daqiiqadiiba waxay heshay
gantaal kaga gariyo jihadii ka lumiyay iyo deg Muqdisho oo la yiri ah kolkiisa loo soo dajiyay labadii nin ee midna hor socday midna daba socday baalka intuu dhulka saaray inuu istaagay oo kor ka ilaaliyay kii kalena uu agdagay inuu baxsaday damcday dabada laga geliyay halkii bay ku burburtay way sheekadii noocaas oo kale ahayd maanta ma jirto way tu kala waxay ka dhacday Dobley iyadoo Dobley Xasan Sheekh Maxamuud la iska ilaalinayo iyo Xamsi xalay reenox baan Soomaaliya wali waxaan soo wareer Dobley diyaaraday de wadanka ku soo gubayeen ku soo waagi raaska booni bay ahayd umay diyaarad iyadoo garoonkii ay cabdibilayaashii iyo technicadii wixii dhex taaganta bay diyaarad ordaysa iska soo degtay wala garab orday oo 10 dhishii ka harraha lagaga taagay oo in la ololiyaa la damcay in cadaana ka soo degay oo gacanta taagay oo wardaayay oo taliyaashii warkada ah ku ridina abihiin la gubiyay war qolo kale noqday war usuga wala isdajiyay way marka nimankan waxa ka wadaa wuxuu ku leeyahayba yani intana aanu ku qorhay oo gaarkan ka hayaayo garoonkan iska tijaabinayo wadankan boole nagu sii korleeyahay ana yomodin inaan nagu leenahay iskalaal way marka Axmed bay u yimaadeen nimankii waa shireen waxaan jeclahay markii koobaadna ma markii labaadna ma marar horena iyaga oo Mareykanku u si goora Axmed ula shiray oo garoonka ugu tagay midka garoonka uu degan yihiin Soomaaliya wayna degan yihiin Nairobi way ku shiraan Kismaayana way ku shiraan marar xataa anigu joogay wafti kan ka culus oo kale way imaadeen oo goobjoog ka ah waxaan marka ka wadaa nimankaasi istiraatiijiyada cusub iyo Axmed la isla jaangoynayeen horumar cusub oo isla jaangoynayeen ma isla jaangoynay waxay noqonaysaa moogtahay in Axmedna tala leeyahay nimankana tala leeyihiin oo tala la wadaagayo moogta marka waxa ay update gareynayeen way sidii ka loo dhigaba nimankaas waxyaabaha xogtooda aan ka helay waxa kamid ah inay horumar kaabayaal dhaqaale oo muhiim ah oo wadada Dobley iyo isku xidha Kismaayo ee laamida ay kamid tahay wadada Raaskambooni iyo Kismaayo isku xidha laamida ay kamid tahay daryeelka iyo dhisida iyo maxaan ku dhahaayay horumarinta ciidanka Jubbaland ay kamid tahay kuwa cusub oo la qoray iyo kuwii horeba istiraatiijiyad cusub oo xoreynta Bu'aala ay kamid tahay oo Jubbaland ay Mareykanku si dhab ah ugu soo jeedsanayaan inay kala garab istaagaan oo Jubbaland ay fursadaasi siisay luminta Xasan Sheekh lumiye Mareykanka marka Mareykanku waxaad moodaa inuu ka tanaasulay goboladan dhexe ee Xasan iyo Turkigu ay ku meereysanayaan oo uu si toos ah u qaatay inuu darafyada isaguna awood galiyo way marka gaar waxa ku jiray waxa la yiraahdaa afmadow wuxuu ka soo guuriyaa Mareykanku Baladogle iyo Shabeellada dhexe saldhigiisa ugu weynna wuxuu keenayaa afmadow warkaasi sidee u jira saldhiga ugu weyn ee Afrika uu ku leeyahay ama geeska Afrika uu Mareykanku ku leeyahay wuxuu ka dhex dhigayaa afmadow hadda kana ugu weyn Djibouti joogo waxa la dhahaa af Faransiis buu ku qornay kaas ha ahaado Soomaaliya dhexdeeda ka Baladogle ee danab lagu taabano iyo saldhigaas ugu weyn ka xataa haduu furnaado mid ama ka weyn ama u dhigma yaa waxa laga furayaa iyadana afmadow Mareykanku u dagaya Turkigu wuxuu rabay inuu dago meesha la yiraahdo Raaskambooni oo dagaalkii sababtay dayax gacmeed iyo meesha Jubbaland maadaama ay muhiim tahay in uu Turkigu istaajiyo yuu rabay Mareykanka oo isaguna taas u arkay khatar isaga waayo ciidankiisa waxay degan yihiin xadka meesha la yiraahdo Raaskambooni u muuqato u dhow oo gobolkan xeebta kamid ah Malindi gobolka wixii kamid ah iyo Mareykanku xerada ugu weyn uu ku leeyahay aga ku taala hadii dayax gacmeed iyo xero Turki ay meesha soo degtana waa minus iyo plus isku gubanayaan Turkigu marka Mareykanku waa inuu difaac nafsi gala hadda meesha joogo waa inuu difaac nafsi gala xoreyntii marka Raaskambooni badbaado waxay ahayd Mareykanka haddana inay maxaan ku dhahaayay dhulbaraha Soomaaliya oo Jubbaland ah Sanguni baa la magaalada Sanguni laga tuuro dayax gacmeed ama la istaajiyo ama gantaal lagu waxaysmo waa in istiraatiijiyada caqliga way nutusayo Mareykanku iyada taas uga hay fursadan marka Jubbaland ay heshay waa fursad uu dayacay Xasan Sheekh Maxamuud markuu Mareykanka ka jeestay way Turkiguna sidoo kale waxay noqdeen Xasan Sheekh Maxamuud maamul goboleedyada iyaguna lumiyeen waa sida Jubbaland ma tii karaan Jubbaland ma iman karaan waayo maamul goboleedyadu waxay aaminsan yihiin dib aan Turki ahayn Soomaaliya inayna lahayn maamul goboleedyada aaminsan Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu aaminsan yahay ama naar ha isla galaan ama janna ha isla galaan Turki iyo Soomaaliya in loo kala haro caalamka intiisa kala faraha ka qaado way aad u maasan tahay waxaan eegi doonaa waxa la yiraahdo Somaliland iyo Puntland labadaba wakiiladu waa u gudbeen Mareykanka ka socday waxa la yiraahdo iyaguna waxay rabaan baa liigu boosaasan wax bay ka rabaan ama bariga fog Mareykanku marka waxaan ku weydiiyay Mareykanku waagi hore wuxuu nagu soo galay barnaamij la yiraahdo anti terrorist ama la dagaalanka argagixisada la dagaalanka argagixisada miyuu ka soo dhamaaday koonfurta Soomaaliya
waxa hadda lagu dagaalamaya dagaal haddaad muxidiin oo aragta adduunka ka dhacay meeshiisa u dambaysa shidaalba ka bilowday haye gobolkan hadda innagu aan joogno colaadan halakaysay ee dhibkaa leh ceelalkadeeda oo meeshaas oo wax nacfi aynaan weli ka arkin waxaan dhahaa dariska xaaraanta anigu dariska xaaraanta iyo ka bilaabatay carab oo dhan iyo khaliij la burburiyey ciraaq waxay eersatay iiraan waxaa hadda gawda loogu hayo ninkii lasoo qabanay waagi dhow isagoo islaantiisa qaba Maduro Nicolas Maduro Venezuela waxa uu la hoogay Latin America waxa daroogada loogu halakeeyay waa shidaal okay carab waxa loo haysto intii fiidiyoyo rakaata looga wada duubay loo gumeysanayo waa shidaalka iyo macdanta uu Ilaahay bixiyay waayo awoodda ugu badan ee caalamku waxay noqotay shidaal marba in shidaalka laga guuro la damco tamarta cadceedda iyo la aado tamarta cadceedduna waxay yeelatay effect ka badan faa'iidada ma la helayo oo kulayl bay adduunki ku sideynaysa waa in marka laga noqdo shidaalkii baa lagu noqday waa dhaweedan waa naxsana waxa isla shidaalada intii laga guuro oo cadceedaha iyo ilayska iyo solarada loo guuro yaa idinka balaayad ku dhaco wixii xumaayad ku baabadeen way kana waxba numa tareemay ya dib lagu soo noqday inta markii laga yimaado Soomaaliya waxa ay u dhimanaysaa hadda inteeda ugu badan waa dagaal dhaqaale iyo dagaal juqraafiyeed Hormuz wad arkaysay wixii ka dhacay iyo saameynta uu caalamka ku yeeshay foostada shidaalka sidoo u badbadalaya qiimaheeda oo marna cirka u geynayo marna uu xaysmayo Mareykanka in laga dareemay guryihiisa kuleelka Hormuz ka yar ka muhiimsanaan doona hadii kaas ay Iran la wareegtay hadii kaleba waa kan kale ee Soomaaliya iyo Yemen dhaxdeeda mara ee badcas maadaama dhulkaas dhul xasaasi ah uu yahay oo ku yaala waxaan idhaahdaa xubinta taranka adduunka ku yaala meel halisa meesha noocaas la asqoray iyo ka soo bilow ilaa iyo wareegaas dhanba Turkigu in uu dago oo shidaalo iyo farsamooyin uu ka samaysto isaga u danaynaya iyo raba Xasan Sheekh Maxamuud 5% way faa'iidadu meesha ka helayo 95 ka Turkiga inuu helo rabo 95 ka kale haday shidaal tahay haday dhaqaale tahay haday kalluun tahay wax kasta Mareykankuna aqliga male ee inta iyo in ka badan inuu helo isna uu ku taamaya cadawgiisa oo wadan kasta oo ka soo horjeedayna inuuna guuleysanin una faa'iidina waa mid uu rabo Mareykankiina taas buu ka dagaalamayaa Turkigiina taas buu ka dagaalamayaa isriixaas inaga waxa la inoogu danaynayay aad u yar yahay laakiin iyaga danaysanaya waa si fiican fahmay oo qolkan rabay marka awalba hadda waxay u egtahay in quwadaha labada quwadba ay soo baxayso inay ujeedkeedu aan ahayn inay wadanka ka xoreeyaan nimankan la sheegayo ay dana kale ayagu u rabeen danahoodina hadda ay ka dhaxarkayaan Somaliland iyo Puntland dhinaca kale shidaalka u badan waxa la yiraahdaa dhinaca Kismaayo iyo xeebteeda meelaha way dhawaan Kenya badda ku murmayna iyo ku jira marka Mareykanku xaggaas isugu guuraya asagoo dantiisa ilaashanaya nimankii marka miyaa laga maxay u egtay nimankaas inayahow badan ka bale xog waxaan waa dhaxdareed baraha bulshada ku arkayay tibaaxaysa ciidamada Soomaaliya sida uu taageero Mareykanku iyo iyagana miisaaniyad u siinay u taageeray waxaan waa tool la ciyaaro waa tool lagu doonayo ama lagu baraxtirayo wadankan inuu na talaabsanin oo ina dadkan isku filaanin oo Ibrahim Traore oo kale una ka soo dhaxbixin fursad kasta wadan kasta waxa loo sameeyaa qolo lugta u gashay hadda hadii Abiy aynan qoladan TPLF ku sameeynin oo geeska laga garaacin maalin walba lagu waxayno lagu xuuqinin uu tagaya lama soo noqonayo Afrikaan iyo reer galbeed toona uma joojinayo waxa jira gumaysi abadi ah gumaysiga abadiga ah reer Yurub iyo reer galbeedku waxay tilmaameen qaaradan Afrika way inaga qanisantahay macdan iyo shidaal iyo nooc kasta iyo Ilaahay ku nimceeyay cimiladeeda halka ay qaaradaha kale marna kulayl noqdaan oo qaboojiye kharash lagu bixiyay la isticmaalo oo dadku ay waxaysmaan marna qabow kulayliye la isticmaalo oo kharash ku caylooba ay dadku noqdaan qaarada Afrika wada aragto waa tan normalka iska sidan u noolahay garanta yar aan ku joognay marna qabow aadan dareemaynin marna kulayl zaa'ida aadan dareemaynin qaaradaas fursadaha faraha badan haysata hadii ay isku filaato oo ay fahanto ilaa gumaysigii tooska ah ee ciidanka lagu haysto uu ka baxay waa in maskixiyan marka loo haysto maskixiyantii loo haysan lahaa waa in iyaga la isku diraa waa in gobol loo kala gooyaa waa in magacyada lagu midaysnaan gobol kasta loo bixiyaa gobolkaas magacaas hadii la siiyo magacaan ahayn ay ku xoroobayaan waa in ay yiraahdaan ma aqoonsanin magacaasna oo aqoonsanahay tuulo muxidiin baan oo aqoonsanahay waa inay dhahaan
tuulo muxidiin anigii de muxidiin leema dhahay waa inaan ku diido aan dhaho tuulo muxidiin see loo dhihi aniga muxidiin leema dhaho waa inaan saa ku kala boodnaa istiraatiijiyada weyn oo meel fog laga soo maamulayo gumaysi abadi oo ninkii isagoo kaa maqan haddana gumaysigiisa ku haysanayo nimankan marka reer galbeedka iyo reer yurubka waxay sameeyeen gumaysiga waxaa kamid ah marka in al-shabaab loo sameeyey oo soomaalida dhexdeeda lagu sameeyey shabaab marka haddaan keligan iska celin lahayna lama ogola hadday keligood iska keen celin lahaayeenna lama ogola iyagana waa la yar dalacsiinayaa haddana waa la yar dhimayaa laba tuul oo marka la isku keen xuuqinayo yaaynu noqon Soomaali weligeed mayna soo taagnaateen haddii hadda la isku fasixi la iyaga mayna soo taagnaateen maya ina diyaana hadda dani hor fadhi lahaa ma dhacayso laakiin waa ina diyaana nin kale daba joogo iyo dani nin kale daba joogo nin labadii ninna ciidankan iyaga iskale waa shaxal ciyaarayo oo kale waxani marka uma socdo caalamiskaad isagaa meesha ku beeray inuu la dagaalamo uma socdo Mareykan ninka leeyahay bahalkiina inuu yani meeshii laga soo gelinayay ba Mareykan baa maamulay anigana waxaan hubaa ciidamada hadda BSF ee Puntland leedahay asaaskoodii hore Mareykan baa lahaa xaqiiqa tababarkii hubkana Mareykan baa siinay dani Mareykan miyuu ka adkaan doonaa miyuu ka adkaaday macnaha waxaa arrinka kaaga dhex muuqanaya wax la yaab leh ciidamadii uu Mareykanku aasaasay intay ka kufriyeen Mareykanka iyo Xasan Sheekh u galeen in Mareykankii oo dani uu ku soo duulay taasa keentay xilli dhaxay ridoobay waa marka ka soo wadaa on kaliya waa Soomaalida wax dana laga ma lahayn iyaga la rabaa in la isku soo celceliyo adoo aan ku soo gunaanadno Mareykanku istiraatiijiyadiisii wuu bedelay Xasan Sheekh guul uma guul darri ku tahay in Mareykanku uu ka tago xagiisa dhaqaalihii tooska ahaa uu siin jiray uga imaan jirayna warsoo dhama uu joojiyay wixii uu ku kabi jiray ciidamada iyo somtaal diriyaado ayuu saamtamiyo wax magacoodii ciidamadan kale Soomaaliya ku wadana wax ku kabi jiray shaadkii markuu ka soo takhalusay maal dhaweedna hadana wuxuu joojiyay qaybtii saadka logistic gobolka caawi jiray hadana xoogaa hadana uu joojiyay hadana wuxuu yiri cid danba haday la soo processor gareeyo oo xaq la igu keeno golaha amaanka qaramada midoobay in dib qaaraan lagu raadiyo qoladan AUSM ta waxaan hor dhigayaa veto power Mareykan markuu xoog tahay inuu doonayo danihiisa inay Soomaaliya ka socdaan xaqiiqo weeyo oo Mareykanku iyo Turkiga hadda isku haya meesha challenge-gaasina inuu faa'iido u yeesho nimanka siyaasiyiinta ee meesha isku haya waa mid dhici karta Mareykanku lacag fara badan oo awalba uu nasiin jirin Puntland oo ballan qaaday oo midan kabka ciidanka laamiyadan saldhigyadan waaweyn waxan waa marka ma aha Axmed Jacayl loo qabay waa Xasan Nacayb loo qabo Turkigu sidoo kale diyaarada una awalba quuri jirin oo hal wadan oo Afrikaan oo siyaayna jirin oo iyuu soo qufay waxaas marka ma aha Xasan Jacayl loo qabay waa Mareykan Nacayb loo qabo xisaabaha noocaas ee tartankee aniguba waan siiyay ambaho laba wadan baad isku keen dagaalaysa labada wadan mid walba dhaqaalihiisii hubkiisii meesha soo gelinaya midkii aad kala arkayna aad buu maasan yahay Cabdiraxmaan Fakado oo qodobkan aynu isku eegaynay istiraatiijiyada cusub oo Mareykanka uu ka qaatay arrimaha Soomaaliya inta aynu dib u kulmayno nabadino assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh